wasiiru dowlaha nabadeynta gobolada bariga Soomaaliland guddiga culimada ahaa ee u istaagay dhexdhexaadinta shaqadii labada beelood ee koonfurta gobolka Sool cuqaal waxgarad wakiilo garaad iyo waxgaradka labada beelood ee shaqadu dhex martay ayaa isugu yimi kulan lagu xoojinayo nabadda labadaasi beelood ee colaadu muddada dheer soo jiitamisay ugu horeyntii culimada ay ka mid ahaayeen Sheekhul Baladka gobolka Sool Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed iyo Sheekh Axmed Jaamac Ismaaciil Mire ahana guddigii dhexdhexaadinta labadaasi beelood ayaa halkaasi ka soo jeediyay kelimado wacdiya oo ku saabsanaa faa'iidada ay nabaddu leedahay. waxaan sidaas la eeg u mahadnaqayaa odayaasha labada beelood culimada labada beelood waxgaradka nin garboodka oo aan nagala hadhin wax taageero ah tilmaamid ah ilaahay baa mahad iskale oo hawshan inoo habeeyay oo inoo hawl yareeyay waxaynu qabanay waxaan ogaataan hawshani sida aayadii la akhriyay ee lagu furtay hadalka ilaahay inoo sheegay oo waxyaabaha jannada lagu helo ummaddu markay wax dhex maraan oo colaadi dhex marto waxaa rabaa muslimiintu inay u kacaan oo qofkii sulxi kaga shaqeeya isu keenid iyo heshiisiin qofka ka shaqeeya waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala u ballan qaaday inuu janno leeyahay cuqaashay waxgaradka labada beelood ee shaqadu dhex martay oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa ka dhawaajiyay inay nabaddu dan u tahay iyaga isla markaana ay u diyaar yihiin annaku muslimow haddaanu nahay beesha halka fadhida ma aanu ihin laba beelood ee hal beel baanu nahay waxaanu nahay wax xuduma ah oo ilaahay jirkooda iyo xubnahooda isku abuuray oo isku sameeyay baanu ahayn oo aan laba magac lahayn oo aan laba dal lahayn oo aan laba degaan lahayn oo aan laba tala lahayn annagu dadka noocaas baanu ahayn waxay nala gaadhay inaanu balaayo awrku xiriirsano bay nala gaadhay haddaanu helay ama annaka ha naga dhasho ama islaamnimaha noogu yimaado ama diinta islaamku ha noo kaalmaysee waxna tusiya danaha iyaga iyo noloshayadii iyo wadax wadaagayagii wax nagu celiya haddii aanu helay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin culimada iyo cidda hawsha ku jirtay odayaasha isimada xalaale wixii ku jiray ee la soo halgamay waa soo dhaweynaynaa waana u ducaynaynaa garabkooda allaha galaan garabkiina allaha galaan uleena iyaga iyo ciddii kale ku soo biirtaba garabkiina allaha galaan uleena waayo waa hawshiinii dhalaan yaa raadshabaalay nimaan dhalin kana dheerayn dhalaanka ninka dhalaa hadduu habaabo raadka wuu ka boodboodaa laakiin ninka xigaa kama boodo aqal sanyare iyo Cabdilaahi Garaad Saleebaan ayaa iyaguna madasha ka soo jeediyay dardaaran ku aadanaa inay labadaasi beelood qaataan nabadda waxaan u malaynayaa waa boog ku taala dadka mandaqadan u dhashay intay taagan tahayna damqaysa waxay kaloo boog ku tahay oo sidaas oo kale ugu tahay maamulka dawladda Soomaaliland oo ka taliya deegaamadan labadii noqolba waxaad tiraahdeen waxaanu diyaar u nahay nabad hadday badan dadku waa oran jiray waxaanu nabad u nahay nabadaanu diyaar u nahado isnaadho ay meel kale ka dhicto ilaahay hayna ka hayo waxaan ku talinaynaa sidaa aad u ballan qaadeen waad leedihiin nabad baanu diyaar u nahay dhab ha noqoto gabadii waxaa kulankaasi soo afmeeray wasiiru dowlaha nabadeynta iyo horumarinta gobolada bariga Soomaaliland Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar isagoona u mahad celiyay cid kasta oo nabadaasi ka qayb qaadatay hawsha mucdeeda meesha taalaynu isugu dhimo waynu garanaynaa halka ay maraysana guddida dhexdhexaadka iyo culimadii ka hadlaysay sheekhdii baa xusay maanta waxaynu wada fadhinaa odayaashii labada beelood iyo waxgaradkii guddidii lahayd dhaqanka iyo culimada iyo aqoon-yahanka isugu jirtay gobolka ee dhexdhexaadinaysa hawsha u qumtay isu taagtay dawladda oo aniga iyo maamulkii gobolka baanu ka joogno madaxda ciidanka qaranka oo hawsha ugu badan horena u lahaa haddana laga sugayo goobjooga waxgaradka kale ee garaadku ugu horeeyay iyo cuqaasha reer Sool iyaguna doonayeen inay markhaatiga ka noqdaan odayaasha labada beelood waxba ugu noqon maayo muddo dheer haddana ahayn baan hawsa ku soo jiray ilaa maalintii jimcaha ay bilaabatay hadda muddo laga joogay waxa ma sanad ku dhowaa wixii aanu la soo marnay iyo wixii aanu galay hadda waxba ugu noqon ilaa maalinta way soo taagnay canaanteedii iyo maageyguna waa socday khayr Allah ka siiyay intii hore uga shaqeysay faraha badleediinta maanta ku jirta maanta waxaad maqlaysaa kaftankii wuxuu soo gaaray gabdhaha kala guursanina intaa waxba idin ku dari maayo aase ku dardaaraya
intaasoo xooga oo la geliyo ama ciidan ka soo la geliyo ama culimada iyo waxgaradka ku dhex jira oo quba haddaydan gacanta qaban labadiilu wax ka hagaagaya ma jiraan ciday dhibaysa ugu horeysaana waa idinka Waliid Ali Star TV Laascaanood